markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal waayadii hore ragga Soomaalida waxaa loo qaybin jiray wadaad iyo waranle. waranluhu wuxuu ahaa dagaalyahanka hubka booba. maalinta qolada uu ka dhashay iyo qolo kale intay qulqulaadi dhex marto ay diriri lama huraan noqoto. wuxuu ahaa ninkii qaadka geela aan looga maarmi jirin, haddii koodu dhacmana wax ka soo dhicin jiray. badanaaba geyigu geyi colaadeed buu ahaa ee waranluhu waa ninkii uu reer waliba isku hadlayn jiray ee maalka iyo maataduba ay dartii ku nabadgeli jireen. wadaadkuse isagu dagaalada ma geli jirin, geel sooma dhici jirin, haddii kooda la qaadana inuu u xirsixira ha joogtee waxba kama uu soo dhicin jirin. hubka lagu dagaalamana maba lahayn. guud ahaan waxay wadaadadu ahaayeen dabaqad aqooneed oo aalaaba ka sariigata dhaqamada xunxun ee bulshada ku dhex faafa, muddo kadibna ay u barato. dabaqad dilka dadka iyo dhaca hantida qalaad aan sida caamada ugu degdegin. waa runoo wadaad waliba qabaa'ilka Soomaalida midood ayuu ka dhashay, hase ahaatee gar iyo gardarraba taladooda kuma raaci jirin. sida waranlahana wixii ay odayadu gooyaan isagu kuma gowracnayn. taas ayaana ugu wacnayd inay wadaadadu dhexdhexaad ka ahaadaan colaadihii toltolka ku salaysnaa. sidaa darteedna markii tukacad la arko ayaa la maqli jiray sheekh la yaqaan oo reer hebelkii uu ka dhashay awgeed loo dilo ama loo dhaco. waxay kaloo dhexdhexaad ka ahaan jireen aqoontii diineed ee ay lahaayeen darteed kolba gartii loogu keensado. inkastoo mar dhifa la arki jiray wadaad simbireerixda oo inta qoladiisa u nuglaada u exda. marahaygana waa kii caamadu intay ku garatay ay dabadeedna ku baxday mahmaahdii ahayd fiqitolkii kama janno tago. hankii ugu weynaa ee culammadii hore ee Soomaalidu wuxuu ahaa dadka oo ay diinta baraan. markii waa la joogaba waxaa degaanada dhexdooda ka soo ifbixi jiray sheekh caalin ah oo kasmooyinka diinta islaamka wax badan ka yaqaan. siday u badnaydna sheekhaas oo kale qolada uu ku abtirsado dhexdeeda caan kuma uu noqon jirine wuxuu u dooli jiray dhul fog oo Soomaalida kale ay degto. halkaas ayaa looga samayn jiray xarun waayada dambe ballaarata oo halka ay ku taal meelo aad uga durugsan looga soo cilmi doonto lagana aflaxo. maalintaas buu warkiisu meel walbaba gaari jiray. dabadeedna culimmada kale ee ay samida yihiin si looga sooco ayay magaciisa hore waxay raacin jireen asal ahaan reerkii uu u dhashay ama magaaladii ay xaruntiisu ku ooli jirtay. sidaa darteed waxaa taariikhda Soomaalida soo maray culimo haddaan sidaas loogu abtirin aan la garan kari jirin, kuwaasoo aan hadda ka xusi karo sheekh Cabdulaahi Qutubi, xaaji cali Majeerteen, sheekh Uways Albaraawi, sheekh xasan Barsane, xaaji maxamed Ogaadeen, sheekh Muxyidiin Celi, sheekh aadan cawra maleh, sheekh yuusuf direed, sheekh cabdulaahi baardheere, sheekh cali Nairobi iyo malaha qaar kale oo hadda xusuustayda ka maqan. sheekha magaciisu sidaa u dheeraado ee xaruntiisa lasoo tamadiyaa ardadii uu waxbari jiray xer ayaa lagu magacaabi jiray. waxayna ka kala iman jireen tolalka Soomaaliyeed oo idil iyada oo aan sina loo kala soocin. xerta sheekh hebel ayaa loo aqoon jiray. marmarka qaarkoodna marba dariiqada ay ku abtirsadaan ayaa lagu tilmaami jiray. sidii dad tol qura ka soo wada jeeda oo dhib iyo dheef wadaaga ayay u dhaqmi jireen, loolana dhaqmi jiray. dhaqaale ahaan hadba bulshada ay xaruntoodu ku dhex taal ayay ku tiirsanaan jireen. runtiina goor hore ayay Soomaalidu waxay soo rogtay hab lagu taageero xerta kuwooda aan degaankaas cid ku lahayn, hab lagu daboolo baahidooda maalmeed muddada ay kutubta sheekha ka raacanayaan. habkaas oo jil loo yiqiin wuxuu nuxurkiisu ahaa qoyskii awoodi karaaba inuu dusha u rito cuntasiinta xerow ka mida wadaadadii aalaaba da'yarta ahaa ee xaruntaas waxbarashada oo keliya ugu soo sodcaali jiray, dabadeedna guyaal idil ku nagaan jiray. taakuladaas gaarka ah ka sokow
waxaa iyana jirtay hanti dadka degaanku ay sheekha iyo xertiisa ku kaalin jireen, xoolo noolna u badnayd. siyaaro ayaa loo yaqiin, waxayna ka iman jirtay rag iyo dumar ajardoona ama muraad kalaba leh oo hantida ay hurayaan ka filanaya inuu eebbe ugu fududeeyo arrimo ka murugsan oo walwal badan ku haya ayna maarayn waayeen. magaca sheekha ha ku yimaadeen ama mid mid xerta ha loogu galladee, xoolahaasi markay xarunta soo galaan ayay isu rogi jireen hanti wadar ahaan loo leeyahay, asii maamulkooda sheekha weyn looga dambeeyo. xoolo xereed ama xoolo dariiqo ayaa lagu magacaabi jiray. soomaalidii jacaylka geela ku fadlaydna uma badnayn inay ka soo dhacdo inay ku dhiirato. waxay ka baqi jireen habaarka wadaadada iska leh ee ay aaminsanaayeen inay asmadu ku laran tahay. waa xoolihii uu cabdigaahir dhacooda ka digaayey markuu lahaa, haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah, minshaar waxgoysiyo hadday malaha xoog weydo, sow inay maraha soo akhrii laga malayn maayo. ragga soomaaliyeed wuxuu wadaad iyo waranla u qaybsanaadaba waxaa la soo gaaray dabayaaqadii qarnigii 19aad markuu sayid maxamed bilaabay halgankii hubaysnaa ee dadweynaha soomaalida uu kaga xoreynayay gumaystayaashii caddaanka iyo madowgaba lahaa, waagaasna dalka qabsaday kalana qaybsaday. dagaalyahanadii uu daraawiishta ku asaasay waxaa ka mid ahaa wadaaddo ay isku degaan ku barbaareen, kuwo ay xer wada ahaan jireen, qaar intay wada xajiyeen ay dhowr sano maka soo wada joogeen, iyo kuwo markuu dalka ku soo laabtay kadib uu isagu kutubta u bilaabay. qaar wadaadadaa ka mid ahay xarumihii daraawiisheed ayay garsoorayaal ka noqdeen, qaar kale ciidamadii ayay barayaal xagga diinta ah u noqdeen, qaar kalena iyagoo laga yaabo labadaas howloodba inay wax ka hayaan ayay duulaamadana ka qaybgeli jireen. taa dambana waxay ahayd xaajo ugub oo bulshadii ka yaabisay, maxaa yeelay sidaan soo sheegay dagaal iyo abaabulkiis toonihii kuma jiri jirin howlihii culimmada lagu yiqiin laguna maamuusi jiray. haddaba xilligii ay daraawiishi soo shacbaxday ee si degdega uu wadaadkii waranlaha isugu rogay, ayaa waxaa jiray maansayahanadii soomaalida qaar ka mid ah oo ay arrintaasi dareenkooda soo jiidatay, dabadeedna fadceliskoodii iyo kii dadweynahaba ka tiriyey tixa maanso oo weli wax laga hayo. tusaale ahaan, iyagoo dhismihii dhaqdhaqaaqa ku howlan oo ciidan ahaan iyo hanti ahaanba aan weli gaamurin, ayay maalin maalmaha ka mida waxay daraawiishi guddoonsatay inay weeraraan degmo ka tirsanayd tolalkii soomaaliyeed ee ingiriiska kala saftay, diidayna inay halgankoodii ku soo biiraan. waxaa colkaas ammaanduulo ka ahaa wadaad la odhan jiray shariif cabdalla shariif cumar oo ay sayid maxamed waday ahaayeen. degmadii oo warmooga ayuu colkaasi goorfiida weerar ku ballaariyey, dagaalkaasoo waagii dambe taariikhda ku galay magaca dayax weerar. raggii degmada laga dilay ka sokowna waxaa laga soo moora duugay dhammaan wixii geel xeryaha ugu jiray ama geedaha eebbe daaqa ugu maqnaa. gabya aan magaciisu na soo gaarin ayaa dabadeed dhacdadaas looga sheekeeyey, markaas buu aad ula yaabay. hase ahaatee lama uu yaabin inta col la duuliyey in reero nabad u fadhiya la geliyey. wuxuu la yaabay oo keliya ammaanduulihii ciidankii daraawiisheed oo ahaa wadaad shariif ah. markaas buu inta geeraaray wuxuu yidhi, cor shariifi wacaysiiyo caalin reera dhacaayiyo cilmi geel lagu qaadi, casiiskii i abuurtayoo cimriyuu ku simaayo ciribteeda ogaada. waxaa isna jiray gabyaa kale oo liqi kari waaye dhaqankii cusbaa ee culimmadii daraawiishtu ay ku soo kordhisay bulshadii soomaaliyeed ee bilowgii qarnigii 20aad. wuxuu ahaa nin arki jiray wadaad qayro meel degan inta u yimaado wacdiya oo tubta diintu tilmaantay ku haga oo habeenkaas loo loogo, dabadeedna subaxda dambe ka jaciirta isagii oo raalli ah iyo dadkii oo hanuunsan. gabyaagaas oo isagana aan wariyayaashu magaciisa nagu soo simin ayaa yidhi, waa tii wadaad reer u yimid waanin jiray jeere, waa tii waxyeelladii ahayd wanay u loogaane, wadeeca allah diintii haddaa weerar loo rogay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.